قدس لو عروسي شلي ما أنت معنا يعني ربعضه معناه حواي واحد لقيته شقيوة يعني دد هرت يقول ربعضه labadooda ma qudbisira ka orasay ما يمد قدس لو قرص من والد كذا كدنتي إلهي كم هدي نين رجعني حنيه شلي حنيه أكون مهرسدي لبقى بلود عن اسبوع كان يقول لي هول مليوني waxaan ku tusinayaa haduu ilaahay raali ka noqdo waxa ku diir gurigan yaa u diir ay u diiri gurigan labadooda masaha ay labada hore ay u diiri midna halkaas baa u diyaariyay ha midna halkaas baa u diyaariyay boqolkiiba boqol toko habeen sariirta waxa ugu tala galay nimaysa ha sariirta waxa ugu tala galay toko aroos kale aniga sabab ma lahayn aroos macna inuu dagaal buuq ka dhaco ana sabab ma lahayn boqolkiiba boqol waxa sabab u lahayn gabdhaha soo lahayn waxaana ka dambeeyay dad qoyleysata macna lacag baa iga maqan xasni iga maqan boqolkiiba lacagto amis hadi waa 8500 dollar 8500 dollar agsi oo haysta 8500 dollar si oo haysta qofka oo haysta hada dad gabdhaha soo laaban weyn maxaa sameynaysaa ya dad ka dhashay xagraba ma dur baan cad ku baxsani lacagto ana ma dur baa ku baxshay ya karata mar dadka ku riiji maxaa dadki dhalay ku riiji maxaan ma lacagta ay dur ma iska ku dhibixiyaan ma dur ba iska siiyaan wamay waxa ay qoor leeyihiin nidaamkeyga iyo qaabkeyga iyo sidii gabdhaha iga daba cararayaan sababtoo lama arag moota wiil lan yaraa oo gabdhuhu sameeyo daba cararayaan bariyan lama arag marka kaasa ma dhihi karnaa in caanimada ay ku fuudayso laba gabdhood isla guursan caanimo ma ahaniyo caanimo waxa waaye heybad baa ilaahay siiyay ama adigu ku nacam ku farax inuu waxa gudu xaasas kale ma leeyahay alxamdulillah shukr alamin mid saddexaad ba jirtaba oo waalantaade oo labadan ku horeysay كينيس يوحش حق درب تقنا ولي ناقل كيني جري ولي نعمل ليس جري وحنا يجي بلا راح ما حاول كل قرنا وضع الحيران واسحراله ما حكى إن المانك استلبق أنا مسحرة أنا كم مدين أنا سحرة تذكر حكوا ده وكم تيسوق قرب معنا أنا وحن سؤالك ودينا وفكر أنا ما دهين أنا ما دهين أنا ما دهين السلام عليكم وأنا أحمد يوسفة وقدام بيوم حتى قلنا جورجا الفنان السعودي ونوقع زومي سيدو كلا تحربنا دور سؤالكم يديو قلالاسي يبوقي حلقة الشيء أروسكا من السعودة جورجا قرقراعنا kani waa laba xaaslihii dhacdada aadka u yaabka badan kala kulmay habeenka arooskiisa waxaa ku dhacday dhacdo ugub ka ah dhammaan ummadda Soomaaliyeed labadiisii xaas uu rajeynayay inuu nolosha la qaybsado ayuu daqiiqad qura waayay sidee ayay wax u dhaceen su'aalo dhowr ah oo aan ku weydiinay barnaamijkan inta aawaday ayaan idinla wadaagi doonaa balse sidaad arkaysiin waxa uu hadda kali ku yahay gurigii aadku weynanka badnaa uu u diyaariyey labadiisa xaas sidoo kaleetana uu isdhahayay cuntada ku kariyeen maantay asaga ayaa jikada ku jira oo karsanaya cuntadiisa waxa uuna maanta iskaabul ku yahay gurigan cidlada ah sidoo kaleeta lacag aad u fara badan oo uu sheegay in arooskaasi uu ku qarash gareeyay balse maantay uusan lacagtiina hayn xaasaskiina uusan hayn sababta keentay in labada xaas hal hool laga wada aroosiyo iyo sidoo kaleeta waxa kaleeta oo weydiinay hadda xaaladda halka ay marayso iyo labada xaas meesha ay ku dambeeyeen balse saaxiibayaal muuqaalka leeg noo saar sidoo kaleeta noo sii sheer gareeya page-kana follow noo dhaha waxaana si degan ila daawataa bilow ilaa iyo dhammaad muuqaalkan oo aan kusoo koobi doono su'aalo badan oo maskaxdaada ka guuxaya buuqan abtaro wuxuu soo bilowday buuqan shalay ma ahayn buuq oo shalaya ma ahayn amba xalay buuq imaada ma ahayn buuqan wuxuu ahaa buuq aniga iga horreeyo ahaa buuqan wuxuu ahaa buuq micnaha aniga la igu talagalo ahaa dad ayaa waxay ka xun yihiin aniga horumarkayga waxay rabaan aniga saanqaadkayga iyo guurkayga iyo barnaamijkayga iyo micnaha howlaha aan sameysanayo iyo xaasaska aan guursanayo iyo micnaha dadaalka aan sameynayo ay ka xun yihiin waa rag qooro waaweyn haddana weligood aan guursan midka ugu jar waa 30 jir sidaan ognahay gabdhaha Soomaaliyeed inta badan hal loo guursadaa maxaa sababta labadooda in hal hool aan ku wada keentay labadooda meesha buuq maadaama buuq dhan buu dhaliyay hoolka soo wada keentay buuqa hoolka kama imaan muxuu ka yimid naagahana maskaxdooda waxa ka socdinaysan ahayn aan nin rag sanahan qof weyn baan ahay waxa balba fahmi karo waxa dareemi karo buuqaas iyo waxaas ayaga wax ay shaqo ku laayeen maaha aniga kaga aqoon bad aniga ka qaano sababtoo naagtaada waxa la yiraahdo maradaada aniga xaasaskay ana kaga aqoon bad boqolkiiba boqol waan aqaanaa dad aan isku soo tiiri tacbad soo jirin ruuxna waa ilaahay ku meheriyay nin ragaani xaniyi shalay xaniyi ku mehersaday laba gabdhood aan isku keenay waliba hool milyoone waxaan ku tusinayaa haduu ilaahay raali ka noqdo tirtan gurigan horta joogno
labadooda ma ugu talagashay mise mid kamid ah ugu talagashay guriga aniga gurigeyga waxaa ugu talagalay labada gabadh bahweynta ugu talagalay waxaan rabay laba midii gadaal ka timid adii aweedatay mise midii joogtay arooska markay buuq u dhacay labada gabadh waxaa bahweynta ah midda gaaban waa laba gabadh soomaan midna way gaaban tahay midna way dheer tahay sax waa gabadhii dambe oo gacanta ka leylo si fiican ayadaa ugu talagalay qadarta rabbi qof celima karto xaalad wixii dhacay waxay ahaayeen wax qadar rabbi ahaayeen qof ninka raggi ahne waxaa la dhahay ilmaha kasoo jiida intaa keema u yeertaa la dhahay aniga waxaan rabay maslaxadeedan ay ku jirtay jeebkaygan oo la ekaa arrinkan inaan dhammeeyo labada gabdhood mid kamida waaba aragtaa gurigeeda ilaahay baa kugu dhaariyey gurigan aad arkaysid hadda ma guri aan naag loo dhigina guri ka fiican gabar looga dhigi lahay ma jiro gurigan guri ka fiican gabar loo dhigi lahay ma jiro waa maysama gabadha midda weyn baa ugu talagalay midda yarna kama liidato maxaa yeelay aniga qarash baa i galay dadaal baan waday waxaan rabay dadaalkayga inaan ku guulaysto dad oo aniga horumarkayga ka xuna waxay sameeyeen buuqay ugu fureen 100% buuqna ani ma jecel 100% waxaan jeclahay waxayga inaan macnaha aan dhammaysto arrinka markii hore soo ku bilowday ugu dambeyn waxa ugu talagalay inuu kor ku dhamaado naagtii qudusir lagu aroosay shalay maanta macnaha aniga dharbaxdo macnaha waxa waaye wax laga soo shaqeeyo inay dad horta igu dhurbaxdo labadooda ma qudusira ka aroosay ma mid qudusira ku guursaday midna waalidkiisa ka doontay dhibaatada waxa maskaxda laga xaday waxay tahay xitaa warkiisa amlina gabadha badweyn warkiisa amlina dagaal ma sameeyeen waxa ay darbaaxay inta badan waxay aad gabadha kala ahayd laakiin insha Allah aniga xaaskiiga ima kala socon waa jeclaa 100% aniga xaas macnaha aan hadda gun u dhilaa ma jiro waxaan jeclahay qalbadooda waxaan jeclahay inuu galsho khayr inuu galsho waxaan jeclaa 100% in ay macnaha ay khayr ku socdaan odayaal ku jiro arintan oo lagu baxay hal indhiis saarani indhii mujida hal isma saarani hal aadsan u soo jeedaa waxa u soo jeedaa hal aad waxay tahay arrinkii in la xaliyo adeerayaashii wixii dhiman way bixin ciiday ku bixin gabadhi gurigeeda u diyaar gurigeeda kale u diyaar 100% aroos kale aniga sabab ma lahayn aroos macna inuu dagaal buuq ka dhaco ana sabab ma lahayn 100% waxa sabab u lahay gabdhaha sabab u lahayn waxaana ka dambeeyay dad qoyleysata macna waxa arkay dadka comment awa dareemi kara meel laga soo galay dareemi kara angalka qof weyn aan soo duubay arooska oo la soo dhigay baraha bulshada dad comment waxay qorayeen maxaa la asaga rabbi iyo rasuul warqaad isa khalis ma ilika rabbi balan ma ilika hal ma dhigeyso waxaan hortaa soo kaamira ma waa idin aqaana 100% waa idin aqaana hal iyo laba iyo saddex afar ma tihiin waxaa tihiin wax ma garatatiin 100% soddon jir waan garanaa 30 jir aan guursan inuu aniga xaasiskeygi macnaha wax ku soo makriyo oo buuq aan igu dhaliyo 100% aniga brother nin buuq lagu dhali karay ma 100% waxa idin tusina xaniigina idin ku tusina 100% aa ku arkiisiin inaad ka shaqaysaan anigana xaasiskeygi anagoo ayo baati ka jiraan gurigooda inaa kaxsada 100% ana guriga dejiyo waxa ku helaysa idinka taqaan baran shaatigiina iska jaxban macnaha maradu idinka dhacda 100% waxa jirtii ma ciyaal suuqin meetii 100% okay waxa aniga saaxiib runta liigu ma 100% nin la gaadi karimay dad miyaa jira oo gooni cadow ku ah oo hadda ka dad cadow ugu ah jiraan oo ataagsanayaan oo xalay aniga wayna xaaskii la adeegsada maxaa ka qadanay oran xaaskii la adeegsada ku أنا حاسس كي اللي أديكسدي أي اللي أديكسدي حاسس كي أغلي أنا اللي أديكسدي أي اللي أديكسدي أروس كي حكرنا فوضى حد أروس ما له فائدة خوام أنا العقب أيام مخن حاسس إنه يجي مقيم بقول عقبته أمس هدي وسديتكم يشم بقدر سديتكم شم بقدر هدي حاسس كي السنة مثلا يقول كانوا الحمد لله شكر العالمين هدي يقول وين هذا فرينك وضيان يكون مقيمين هل كان فرينك ودير بقول nin gambanay ma yahay lacag soo haysta fariin ma u diraya lacag soo haysta 8,500 soo haysta soo haysta qofka haysta hadda gabadha soo laamo weyn maxaa sameynaysaa ya dad ba ka dhashay xagraba ma dur baan cad ku baxshani lacagtu ana ma dur baa ku baxsh ya karata mar dadka ku riiji maxaa dadki dhalay ku riiji maxaa ma lacagta aan dur ma iska ku dhibixiyaan ma dur ba iska siiyaan waa may waxay gelin karaan maxaa laba ma leedahay oo laba gabdhood isku keentay oo problem ka dhalan kara
keenis iyo waxaas waxa ka daran taqaanaa weligeena naga la isku keeni jiray weligeena ama la ruus jiray waxaan iga bilaabay waraha maxaa kala qarna sanadkan jira 2023 in iska daa la guursado la isku horkeenay in ismaqlaan ama ogaadaan problem ka jira marka maxaa keeni kara waxaas ciyaalin ma arkan faantaadi aniga qof weyn baan ahay nin wax galaw nin wax gudu xaasas kala ma leeyahay alxamdulillah shukr alamin mid saddexaad ba jirta oo waantaadi labadan ku horeysay nin mid saddexaad alxamdulillah shukr alamin hay socdaal waxaa jira dad badan kommentiyada aan maadaama soo akhrinay su'aalaha ku weydiinayeen yihiin ra'yiga bulshada dad waxa arkay soo qoraya socdaal waa sixroole oo maalin kasta laba gabdhood uu soo sixraa meesha uu keenaa maxaa ka jira arrintaas wato aniga laba gabdhood weligii allah laba gabdhood meel ina keenin maantaan sameeyey raganimaan ku sameeyey dadka dhahay waa sixroolane waa dad raba in ay aniga iska kiya daba dhigaan ninka ragga ku gaari waa darafta ku qabsadaa waxaan darafta inay qabsadaan boqolkiiba boqol waa iskaabul wararsan waa boqolkiiba boqol iskaabul wararsan waa aniga tabar uma hayaba sababtoo waxa ahay nin wax samaystayaan ah nin wax samaystayaan nin baa ka xun nin weligiisa nin baa ka xun taas iska caadi wax dhibaato ma lahan hadda waxa leedahay dadkaas sixroole ma ahi iga leex war sixroole ma sixroole waxay garan jiraan wax sixroole garan jiraan wax sixroole garan jiraan sixirkan waa dambi boqolkiiba boqol aniga waxa ii quur leeyihiin nidaamkeyga iyo qaabkeyga iyo sidii gabdhaha iga daba cararayaan sababtoo lama arag moota wiil dhalinyara oo gabdhuhu samay daba cararayaan beriyaha lama arag marka kasta ma dhihi karnaa in caanimada ay kuu fududaysay laba gabdhood isla guursa war caanim maahan anigu waxaa waaye heybad baa ilaahay isiiyey ama adigu ku nac ama ku farax heybada soo maxay weli adba adartiga kula hadlaya ama ku farax ama ku nac iskaabul inaan naga qabto ma sheegi karaan ku farax ama ka nax aniga heybad ilaahay wuxuu isiiyey gabadhi ilaahay waxaan isugu keen daro oo aan isfahanno inaan helo sababtoo waxaan qof daacaday qofka daacada naag ma waayo socdaal barnaamijkan kusoo gabagabeyna su-aasha ugu dambaysa rabnaa ku weydiiyo gabdhahaas adiga miyaa jaceyl kusoo bandhigtay oo raadsaday mise ayaga kusoo raadsaday aniga su-aal kala weydii sababtoo aniga ma rabo hadda dhibaatada hal ijaarta waa boqolkiiba boqol xalay iska daa rag dumar iska daay xal waxa idilay raga idilay boqolkiiba boqol rag nin rag aniga ihraamtahay kor nin fiiray kor أنا ما قبض سؤالك ويدي إجابة لين رجع أنا إفيري أما نرجع أنا رانتاي أنا ما قبض وحبوق إدياك وضوء أنا أقول الله ما رجع أول ما أنا حاسس كي أول عفنسي هذه كل تسأل جوابت الرجال إيه وكرخت وضبط مقالات ده وضوح كم إذا إن عديقوا لو قبلها كدليان فوقها بوق مش كجروس هادي رجع يدلين جوابت من هنا قطع كذا رجع برنامج كوتي وحلا وتوه قبلي يشاكوا ملهين labadii gabdhood ay jecel yihiin waa la shitaaran fatadii maskaxda laga degan fatadii weliba mid kamid ah la shitaarata midda kalena way ku daysatay laakiin insha Allah duuleeradu hoshan tariiq soo dhamaanaysa hay okay insha Allah saaxiibayaal waa arkaysiin waxa ku sugannahay hoyga mid kamid ah xaasaska socdaal odaashii baa maqan reerkii familkiiga maqan xaji ku maqan yihiin laakiin arintan insha Allah duuleer soo hagaagaysa insha Allah socdaal barnaamijka muuqaalka waa iska gabagabeynayna waa iska sheexeyn doonaa halkaas ayaan ku ekeenaynaa muuqaalka duubeynay maadaama waraysa ugu nimid fanaanka iyo sidoo kale arooska cusub marka insha Allah ma halkan qolba soo diyaarso qolka dhan iyo waxa dhan maya guriga dhan inuu kirisan yahay waa sid apartment waa saddex qol okay waa qolna waa fadhi qolna waa chief qolna waa martida macnaha sababta ma sha Allah insha Allah waxaan ku sugannahay hoyga alfanaan socdaal caruuska cusub barnaamijkan intaas ku ekeenaynaa salaam Allah